intii uu joogay waxaan ku iri war madaxweyne soo ma ogid 8 February inay soo dhowdahay oo deadline-kii doorashada soo dhow yahay maxaa dhacay yiri waxaan iri soo ma haboon inta ka horeysa in at least heshiis la gaaro process-ka uu socdo warqadii Xasan Sheekh uu qoray oo kaleeto oo ah in dawladdan ay tahay dawlad aanan waxyaabaha masiiriga oo qoran tahay waan u maleynaa internetka ku aragteen oo muujinaysa inay dawladdan ay doorashada maamulayso qor warqadii xataa koobiyan wata anoo ajendaha noogu jirtay lama sii gaarin waxa gadaa garbahariya dhaaf weyn warqadaana qor horta warqadii iyo markuu maqlay 8 February oo wuxuu yiraahday aan waxaan isleeyahay danigay soo waxaaba ku dhalisay inuu tago 8 February inuu proof gareeyo inay 8 February wax la jirin wuxuu yiri 8 February wax la ma jirto dastuurka iyo ogol waxaan dastuurka inta ka ogol yahay baarlamaanka ba midka bedel midka maxaa inta mid kale ka imaanayo waa sii jooga horta meel hadda iska manaanaanays ma jirtee kusimo waa okay laakiin ma qaadan karaan qaraaraad masiiriya hadda inaad dhahdid shuruucay ansixinayaan ceeb weeye dawladnimada ceeb ku tahay aflagaad weeye adiguna suuragal maaha inta Xasan Sheekh gartay ma garan weyd inta samee waa u baxay caradii iyo doodii aniga aan u arkaa inay naseexada u tahay waa tuu baarlamaanka yiri Siciida waxaan iska qorqorin jiray aniga waxaan isleeyahay ninkan marna lagu xijinayo waa daarood leeyahay marna leeyahay maamul goboleedku u horeeyay oo u weynaaba tihiin roolkaaga qaad saas odayada iyo dadka wax garadka iyo simada oo dhan markay la soo hadlaan maaragtay la leeyahay warmaandow Soomaali meel ku kala tagaysaa ka talin waxaan isri bal intii karaankaaga dadaan waa tagay 8 markii dhaafay oo maalin iyo laba iska maqanto shaqadii iska socoto way soo wacay waa wada hadalnay haye 8 maxaa dhacay waxa ma dhicin haye ما هرجدي وأوجد أنا وحبد عنا أما أنا من قرقها هردانو مركو سيدو ذي كعام بايرو قدارة كدات وحياة قاله هبين كده مركو واحد عين صار يبيع صدق يسوع حدي واحد يتربو يرنون كده قدارة كسر الله واحد صدق تمارك تقول وحير ما مارك عيد رمضان أو دبابات كوتنا ما بوجينا هرتا قرقر كان الشيء جاي أنا وحنا كم مغلى مالين اللي يري قل مدوق على الخير أو دجال كسعودي قد إلا جينا وهم مغلى قابت الصدق هذا كده قال لمن وحين نقطة الجير كده حصل هرت أنا أساس أنا أكود جريسان عربة هرم عادي يقرقر مال كلا كده قال لمن ماله أنا وارث جري ورح عيدا كأنت اللي يجي وحلي شيء إذا ماذا تركضوا تابري يكوا وحاول اسكو دردرو عيدان هدا انيga aan sheegay dadka nixinayo tiro badan oo dabaabad wata hada hal maalin shabaab kama aadin wadada afgooy iyo xamar isku xirto xiranta hurwa lama tigi karo war gorgorkan haday dadka wax u qabanayaan jidadka maxay u furwaay niman meelay ku jiraan cid arag oo ani hadda wax lagu akhriyo ma garanayo hada awal waxa la soo saas beeyay karto dadka reer Puntland saas dhahan لكن أوجاد الصومال نقاني ما إلا الشباب شيء كذا اكتوال أركي الصومال سما إن إسقرحيان أو ذاتك قيورعان نمن كان أنا قصيد الله توبر الشك وين أيجي مرك وإحنا حريصة وإليه المجلس خرط الضل كما يجوا كل صعده وحنا رأينا صفي على فهمتها ضدك وحنا الله مش بلد لكن وقرسون وين نروح نيجي يعني maxaa yeelay hadaan ka digi weyno oo dalkan dagaal sokeeyo uu ka dhaco oo qabaa'il la isku laayo oo xoog la isku sheegto oo dalka dabaabaad la jiirsiyo annaga dambiilayaan noqonayno nimanka internationalka hadda dhahay 17 September hal ixtiraam 17 September alam tara soo dhaaftay 19 February ka dambeysay habeenkii markaan doodayno wuxuu dhahay in dhacde oo aniga waxa ka yeersiiyay hadda aan garanayn ilaa maanta runta iska sheegayay ayaantii horena wuxuu yiri adsabaan ku tukanayna maalintii dhaweydna waxbuu sheegay
labada marba waxbaa dhacay ani ay dhoonna cid u shaqaynayo laakiin reality-ga marka loo hadlo waxaan ku iri bal daljirka dahsoon ninka wuxuu raba hadhoo cidda ka yeersiisay ilaan madaxdii intay hadasho hadday dhihi lahayd dowlad ma jirto madaxdu waa hadlaysay maalintii ku horreysay meeshay maraayeen waxay lahaayeen mudaaharaad biisi fulaan rabnaa mid nabadeedaan rabnaa ninkan wuxuu yidhi haddaaba samaysay gartaye kii maalinnimadii dhacay oo ra-iisul wasaarihii 3 sano iyo barka ra-iisul wasaaraha ku ahaa oo calankii saa u lulaaya xabadda lagala daalay maxaa ku fasiraysaa wuxuu yidhi ciddii sharciga ka hor timaata tallaabaa laga qaadaya horta madaxweynaha meesha noo fadhiya literally kolle ari waa iga geesin yahay intaan hubo laakiin geesinimadaas tii la rabay miyaa mise mid kale miyaa idinkaa ka jawaabi doona maxaa yeelay geesigu waa midka xaqana ka hadla xumaantana dadka gacanta ka qabta ma aha nin ku dhiirada wax cirib dameedkeeda uusan garanayn runta markaa inii sheego waxaa hadda xamar ka socda waxaan ka baqayaa inuu dagaal sokeeyo oo hor leh iyo qax hor leh dadku rido waxaan hadalkay kusoo gabagabeynaya ka codsanaya dadka reer muqdisho iyo madaxdooda inay intii ka fogaan karaan in la geliyo dagaal inay ka fogaadaan godin yahay ima goyseen haddaan gabalkay kugu jirin baa la yiriyo madaxweynaha kuwa degaankiina garab taagan oo falsafadaas la qaba oo inay dalka xoog ku xukumaan raba dadka qabyaalada ha u kala saarinina dad mararka qaarkood caadifadu qaadaysa arkaya dadaalka aan ku bixinay inuu dagaal dhicin oo dadku waxay heshiis ku yahay ku dhaco oo khatar kasta u wajahnay waad garanaysaa mararka qaarkood meelaha aan tagayno runtii walwalka iyo ragga ila jooga ka sheekeyn kara waxba la qarin maaye magaaladii xamar haddii laga wiswisay oo laga shakiyey oo la yidhi cuntadeeda ha cunin oo waa sunbaa ku jirta oo waa lagu dilayaa war ummad toror ku jirta ma al-shabaab aan ka baqnaa mise villa soomaaliya aan ka baqnaa horta reality-ga aanay sheegaya maxaa yeelay asaaliibta la adeegsanaya iyo midda al-shabaab sakeeyaan wax difference u dhexeeya male maalin walba waxaan ku jirnaa trap dadka Soomaaliyeed oo dhanna waxa la geeyay inaysan hadli karin ninka madaxweynihii magacaabay inuu ra'iisul wasaare noqdo oo fursad u siiyay inuu dalka Soomaaliya madax ka noqdo oo Sheekh Shariif ahaa iyo madaxweynihii xilka ku wareejiyay ka horeeyay xurmada u qoori waayay oo marna diyaaradda u diiday inay ku aadaan Kismaayo marna iyagoo beledweyne aadi rabay laga hor istaagay maantana iyagoo hotel jooga lagu xabadeeyay ra'iisul wasaarihii u shaqeyn ayaa dhaxas waxa dhigi jiray ra'iisul wasaaruhu muxuu u hadli ayaa wixii jira u sheegi waay soo waa nin malaha og nimanka waxay yihiin ilaa nin ya waa dhigi jiray muu wax cadeeyo halku markuu yimid ragga kale waxay leeyihiin muu hadlo warninkaas ka daayay marka waxbaa jireen sababtoo haddaan wax ilaahay waxaan xishoonin haddii ilaahay kugu xiriiriyo khatarteeda leedahay runtii waxa Soomaaliya ka socda wax laga aamusi karo maaha waxa ay ku socotaa dalkan meel halis ku jira waxaan ugu baaqayaa shacabka Soomaaliyeed si midaysan iyagoo iskala saarin dictatoriya inay ka hor yimaadaan iyagoo si midaysan oo qabiil isku kala saarin inay sharciga ilaaliyaan iyagoo midaysan waxay heshiis ku yihiin oo doorasho inay galaan wax nin leeyahay ciidamada ana iska leh ciidamadaydu yiri hadda tii u dambeysay wallahi inaan been ka sheegin wuxuu yiri garow hal yimaado ma imaanaysaan lafeena uga baqnimo wuxuu yiri dhul samareeb ruuxa dhul samareeb hadda kan inuu xabada ka dhacay ma ana waxba kama dhacayaan ugu dhahay I don't know ciduu og yahay macnaheedu waxay tahay ku wax soo tuurna waa yaqaana literally maanta inaan wax ka qariyo ma rabo waxa meesha soo socdo niman international la yiraahdo oo FMS iyo waxaas FGS iyo HVM oo ku haya waddamadooda waxay u qoraaciga jirta laakiin ana waxa inii sheegayaa wax aanan ogeyn inaan Puntland ku matali karin anigu aadi maayo habraha iyo ciyaalada meelaha la sheegay ninka daarood maxaa laga rabaa war ninkan daarood ana ma u maleynaa inuu daarood harb jiiday run inii sheegayaa ha ku kalsoomina nin daarood har u jiiday aan ma soo arag xataa maraacan in har u jiiday ma soo arag marka caadifada intii la iska daayo dardaarankayga ugu dambeeya waliba saaxiibada kale oo Soomaalida waa necab tahay Puntland aan kula dardaarmayo
Puntland waxaan oran lahaa marna yaysan aqbalin nidaam Soomaaliyeed oo aysan raalli ku ahayn oo federaal ah oo wax ka maamulayso oo transparency inay wax ku darsato xaraam bay ka tahay waa in waxa Soomaalinimada la sheegayo waa inay miiskaas dul saaranta Soomaalinimo lagu orkacsanayo hadhowna kuwa ugu qaylada badan ba ugu balanbala badan hadhowna aan la wadi karin dadka masaakiinta ee la siray ee meediyaha iyo dadka loo soo dirdiray iyo lacagaha loo qeybiyay ku siray iyo niman xoog wadaniyiin la dhaho habeenkii habraha u guda dadka waaweyn wax garadka lama hadlaan caruurta iyo habra aan warhayn oo TV-ga iyo aan fiirsan waxaas u sheekaya dadkiina mas'uuliyiintu halka jooga waxaan ii sheegayaa dadkiina waa nila gacan dhaaf hadda aamus lahaydeen oo nila kaxaysan lahaa oo sida hadda nimanka xamar jooga aan noqon lahaydeen oo kaleeto iyo hadda damiir yeelanayd horta idinkeena taala wixii dhacay 80maadkii hadday soo noqdaan waa waxaan anagu isbadnay waxaan u dirayaa fariin ah adkaynta Puntland midnimadeeda iyo dhulkeeda inay tahay arrin lama taabtaan raadinta Soomaali federaal oo mid ahna in loo saciyo ilaa ay ka imaanaysana la sabro هذا إن نقول عنه مكترينه Soomaaliya aan jecelnahay hadaha lagu dhaco ku tilnaan waxa la rabaa ilaa wax cad oo la yaqaan oo wixii qornaal ixtiraama yimaadaan waxaan qabaa xoogga waxa saartaan Puntland iyo jiritaankeeda naalisa wa salaamantii wa salaamu alaykum Premier Wallet waa application cusub oo uu ku keenay Premier Bank faa'iidooyinka Premier Wallet waxa kamid ah waad iska diiwaangelin kartaa adigoo jooga goobtaada dadka aan account-ka ku lahayn bangiga Premier waa ay iska diiwaangelin karaan Premier Wallet dukaamada iyo ganacsiyada kala duwan ayaad wax uga iibsan kartaa lacagaha waxbarashada caafimaadka korontada ayaad ku bixin kartaa lacag ayaad u diri kartaa qof kale laguguna soo diri karaa si fudud account-kaaga iyo Mastercard-kaaga Premier Bank ayaad ku xiran kartaa kana maamulan kartaa lacag ayaad ka dalban kartaa asxaabtaada ama waad ogolaan kartaa lacag laga soo dalbaday dhaqdhaqaaqa lacagahaagana waad kala socon kartaa ganacsiyadu waxa ay leeyihiin ab u gaar ah oo ay kala socon karaan xogta lacag bixinta macaamiishooda inta ay in ka badan ba ka hel abka Premier Wallet oo kala soo deg hadda Play Store-ka ama App Store-ka Premier